inta aad ku gudi jirto dheelidda qamaarka gaar ahaan wan exbet iyo wixii la mid ah waxaa qasab ah in aad martid saddexdan heer. marka koowaad in aad haysatid lacag aad ku dheesho qamaarkan oo lacag aad u badan ama mid yar midda ay doontaba ha noqoto. marka labaad in aad riski ama khatar aad la kulanto oo labada dhinac ah. marka saddexaadna in aad hesho wixii qamaarka ka soo baxa khasaaro ama faa'iido. madax xanuun joogto ah, hami aan dhammaad lahayn iyo maskax xanuun qoto dheer iyo walbahaar waa dhibaatada inta badan dhalintu kala kulanto qamaarka nuuc kasta uu leeyahay. haddaba inta aanan ka hadlin dhalinta iyo sidoo kale dhibka uu ku hayo qamaarka, in yar qamaarka aan ka hadlo. qamaarku ma ahan mid soo bilowday sannado ka hor ama 2 qarni ilaa iyo 3 qarni ka hor. waa mid jiray cusuurtii hore, xilliyadii hore. waddamada ugu caansan ee qamaarka laga dheeli jiray ilaa iyo haddana laga dheelo waxaa ka mid ah Mareykanka iyo dalal kale oo aad iyo aad u waaweyn. qamaarkuna waa 2 qayb oo qura: mid aad wax saaranaysid ama lacag aad meel dhiganaysid, kadibna khasaaro ama faa'iido aad ka sugaysid adigoo aadan waxba qaban, gacmahaagana ay isku ka korsaaran yihiin, iyo mid aad dheelaysid oo gacantaada khasaaro ama faa'iido aad kala kulmaysid. xilliyadii hore qamaarku wuxuu ahaa mid la dheelo, waxaana qamaarku uu lahaa goobo loo tegi jiray laguna dheeli jiray si walbaba ha ahaatee. balse hadda qamaarku waa la soo casriyeeyey, ablikeeshanno ayaana laga soo dhigay. ablikeeshanadaasna waxaa ugu caansan abkan wan exbet oo hadda qof kasta isagoo gurigiisa jooga uu ciyaari karo si fudud, lacagta uu doonana saaran karo. dhallinta wakhtigan jirtana badi waa ciyaaraan, haddii ay noqon lahaayeen ciyaarista geeman iyo sidoo kale saarashada ciyaaro. lacagtaasi lagu dheela qamaarkanna natiijadeeda iyo halka ay ku dambeysana cid og ma lahan. maxsuulkeedana waa mid murug ama farxad wata, balse dhanka badan markii loo eego khasaaradiisa ayaa aad u badan. wan exbet waa ablikeeshinka keliya ee hadda dhalinta maskaxdooda beddelay. 4 dhalinyaro oo meel joogtana 2 ka mid ah ayaa ciyaarta ama isticmaasha aaladan wan exbet. inkastoo dhalintu aysan wada ciyaarin, eedana dusha aanan ka saarayn dhammaantood, laakiin wan exbet waa aafada mugdiga gelinaysa mustaqbalka dhalinyaro fara badan. waxaana mustaqbal xumo ku riday dhalinyaro aad u fara badan oo hadda qabatimay lana qabsaday aaladan iyo isticmaalkeedaba. waxa dheelo isticmaalana dhalinyaro oo keliya ma ahan, waxaa sidoo kale ciyaaro isticmaalana ganacsato oo iyagana faa'iido ka raadiya aaladan, inkastoo khasaaro aanan xadidnayn ay kala kulmaan laftirkooda. waana aab 2 ilaa iyo 3 maalin kadib qofka markuu isticmaalo uu la qabsanayo, una sidoo kale ka maarmi karin marka laga reebo dadka qaar oo iska daayay. ragga iyo dumarkana waxaa inta badan isticmaalo abkan ragga ayaa ka badan dumarka isticmaalka aaladan markii loo eego. lacagta ugu yar ee la saaran karo waa laga warhayaa, waa 30 senti. 30kaas sentina waxaad ku helaysaa lacag ka badan intii aad saaratay, oo ilaa iyo 50 ama wax ka badan gaaraysa. lacagahaas yar darteedna waxay ku qasabtay in ay dad badan dheelaan lana qabsaday aaladan. laakiin waxaa hubaal ah in khasaarada wajahayso qofka dheela aaladan ay badan tahay. 80%na waa khasaaro socota, halka 20% ay faa'iido dib ay kaga sii qaadanayso ay tahay. aaladan 2 qayb ayaa lacagaha loo kala saartaa, oo ah ciyaarista geeman iyo saarashada ciyaaro oo aad natiijada ka soo baxda ciyaarahaasi ay ku xiran tahay lacagtaada, khasaaro ama faa'iido. marmarka qaarna waxaa suurtagal ah in aad ciyaaraha xilliyada dambe soo gelaya aad sugtid, daawatid koox aadan xitaa adigu aanan jeclayn, xitaa inaad iska taageerto keliina aad ka fiirsato lacagahaas iyo shilmaadkaas yar. waana dhibta ugu badan dhalintu ay la kulmaan. hurdo la'aan, dhibaato, madax xanuun iyo jahwareer joogto ah ayayna leedahay.
calaamadahan waa calaamadaha lagu yaqaano dadka ciyaara ama isticmaala aaladan iyo nuuc kasta oo qamaarka ka mid ah. in aad aabkan dartiis ku weysid shaqo, xiriiro muhiim ku ahaa oo aad dad kala duwan la lahayd, jaamacad ama iskuul aad iska daysid, waxbarashana aad nacdid, sababta ugu weynna waa qamaarkan. iyo in markasta qofka isticmaala aaladan marba xaalad ay tahay xaaladiisu, mar uu joojiyo, bilaabo, joojiyo, sii wado, go'aamo qaato, sidoo kalena isagoo markii dambe joojinaya isagoo wax faa'iido ah aanan ka helin, khasaaro oo keliya, dhaqaale xumo, iyo in uu qofka uu musallafo ama shiid uu noqdo. waana dhib ka mid ah ama calaamadaha lagu garto qofka aaladan isticmaala. in qofka qoyskiisa uu ka qariyo in uu ciyaaro ciyaartan, in mar kasta uu qofku dadka kale uu baryo isagoo lacag ka doonaya si uu ugu isticmaalo aaladan. maskax ahaan in qofka walwal joogto ah uu la kulmo, marba xaaladna galo, iyo in go'aan la'aan ay kugu dhacdo oo aad go'aan la'aan noqotid, meel aad go'aan ka qaadatana aadan garanayn. haddaba kuwan waa calaamadaha qofka qamaaristaha ah ama aaladan badi isticmaala. aafada dhallinyarada qarnigan waa qamaarka la soo casriyeeyey, lacagtana laga helo, waana xaaraan oo dharka laga gato laguma dukan karo, cuntona laguma cuni karo, waana xaaraan meel kasta aad ku bixisidna ma ahan meel ku habboon. ka aniga ahaan xisaab ma lahan inta qof ee aan arkay faa'iidana ka raadinaysa qamaarkan la soo casriyeeyey. muslimiintana dagaal nuuc kasta ah ayaa lagu hayaa si ay qiyamkooda iyo diintooda la duudsiiyo. dagaalkaas dhallinyarada meel kasta kaga imaanaya waa mid ay wadaan dadka aana muslimiinta ahayn, diimaha kala duwanna haystaa, waxayna keliya doonayaan si ay u baadiyeeyaan dhalinta muslimiinta ah iyo dadka muslimiinta ahba, iyagoo mar kasta meel iyo fikrad keena si dhibaato ay u wajahaan dhalintu. 1xbet khasaaradiisa, dhibtiisa iyo mustaqbal xumadiisa iyo walwalkiisa joogtada ah haddii la sii wado waa mid lala qabsanayo, jiho kalena u wadayo qofka, xaalad marba si gelinayana. muuqaalkii maanta intaan ayaan kusoo koobayaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. tan iyo muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah.